صاحي وضطان صباح قيامة لور تجي سبحان فراريد السؤال محاصاحي وضطان صباح قيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي هبوني دلهانتي بميل كستو جوجتان كنا soo dhawaada barnaamijka xaraday toddobaadkan waxa marti ku ah wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi. Maxamuud Xaashi waxa uu sanadkii 1964 uu ku dhashay degmada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. waxa uu ku soo barbaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaas oo uu dugsigiisii hoose dhexe uu ku dhameystay. dugsigiisii sare waxa uu ku kala qaatay dugsiyada Farasti Julay dugsigii loo yaqaanay ku yaalay magaalada Hargeysa iyo dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Burco oo aakhirkii uu ka baxay sanadkii 1983 ilaa iyo 84. markaa kadib uu dugsigii sare dhameystay waxa uu ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee Sanam oo ka tirsanaa ilaa sanadkii 1991 markii ay guuleysteen. markii ururkii Sanam wadanka la wareegay waxa uu noqday maayirkii ugu horeeyay ee magaalada Burco isagoo nasiib u yeeshay in uu ahaa duqii martigeliyay shirkii laga dhawaaqay goonistaagga Soomaaliland sanadkii 1991. sanadkii 1993 waxa uu noqday mudane ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland xilkaasi oo hayay ilaa 2005. sanadkii 2002 waxa uu kamid ahaa aasaasayaashii xisbiga Kulmiye waxaana uu ahaa qofka labaad ee xisbigaasi aasaasa marka laga tago Axmed Silaanyo sida uu ku sheegay waraysi hore uu bixiyay. markaa kadib waxa uu tagay wadanka Britain halkaas oo waxbarasho u tagay muddana uu ku noolaa. sanadkii 2010 markii xukuumadii xisbigii Kulmiye uu guuleystay waxa uu madaxweyne Silaanyo u cugtay inuu noqdo wasiirkiisii duulista iyo hawada jagadaasi oo hayay muddo 5 sano ah. markii dambana waxa uu magacaabay wasiirka madaxtooyada oo hayay muddo 2 sano ah taasoo macnaheedu tahay in 7 sano ee uu talada wadanka hayay madaxweyne Silaanyo uu Maxamuud Xaashi ahaa wasiir. haatan waxa uu kamid yahay saraakiisha xisbiga haya talada Soomaaliland ee Kulmiye waliba muddooyinka u dambeeyay waxa la sheegay in uu gocolo urad ugu jiro shaqada gudoomiyaha xisbiga Kulmiye. maanta waxa uu marti ku yahay barnaamijka Haladay. Maxamuud si weyn baan kaaga mahadcelinaa inaad waraysiga nasiiso oo barnaamijka Haladay aad marti ku noqoto. aad iyo aad baad mahadsantiin waa idin soo dhaweynaya. aad iyo aad u mahadsantahay anaguna aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa bal ugu horeyn xilka wasiirnimo muddo 2 sano baad ka sii maqnayd. muddada 2 sano shaqada ugu badan ee aad qabato ama waqtigaaga ku bixisaa maxay tahay? bismillaahir rahmaanir rahiim. runtii qaranka waxaan u soo shaqeeyay 7 sano oo isdaba jooga oo aan nasab lahayn. waxaan waqtigayga geliyay sidaan ummadayda ugu adeegi lahaa. waqtiyada qaarkood ayaan waxaan seexan jiray 24 saacadood 3 saacadood oo xaqiiqa. marka muddadii aan hadda xilka ka sii maqnaa waan nastay. qoyskaygii iyo caruurahaygii iyo qoysaskaygii baan maamushay danahaygii gaarka ahaa oo iga dayacmay waayo raganimadu waa inta reerkaaga ka soo hadha. aqoontaydaan dhisaa waxbaan bartaa waxbaan akhriyaa. bulshadii aanu kala fogaanay xilku go'doon buu iska leeyahay ayaan in badan fursad u helay la shaashaaho. marka sidaas weeye hadda noloshaydu. warar baa sheegaya in aad qorayso buugaas horta ma jiraa? haa waa jiraa. muxuu ku saabsanaan doonaa qodobada ugu waaweyn? waxaan runtii is leeyahay muddo badan baan ku soo jiray siyaasadda Soomaaliland. waxaan ka fikriyay bal ummadayda waxaan ku kordhin karo. buuggaasi ma aha buug taariikh nololeedkayga biografigayga aan anigu ka warramayo. waxaan go'aansaday inaanan anigu iska warramin laakiin aan bulshada wax kale ku biirin karo noloshooda horumarkooda geedi socodkooda nololood. marka arrimahaas ka hadli doona. marka wuxuu taabanayaa taariikhdii Soomaaliland iyo waxyaabaha iyo waa kamid qaybahaas iyo maxaynu qabsan karaa xageenu ka nimi xageenu ku soconaa maxaynu noqon karaa goorma ayaa laga yaabaa in haysta si lagu gudbi karo goorma ayaa laga yaabaa in buuga dhamayso bulshada la wadaagto?
kulliba sanadka 2020 haddii ebeydmo ayaan ku tira jiraa inaan soo gebagabeeyo. maadaama dee aada 2 sano iska firaaqa ahayd dhinaca isboortiga ama ciyaaraha isa isku tiid kulliba ma exercise lii inuu weyn baan hayo inaan waa laga maarmaan da'dii deynku isdhowri jiray baan ku jiraa da'dii uu qofku balwada u ciyaari jiray waa soo dhaafay waxaan ku jiray waqtigii uu qofku exercise isagu isku dhowri lahaa. fanka isa isku tiid heesaha iyo suugaanta iyo arrimaha runtii markii aan yaraa ma ahayn dadka jecel inaan jilo isagu laakiin muxuu ahaa gaar ahaan suugaanta waan jeclaan jiray gabayada waan dhegeysan jiray muxuu ahaa xilligii gaar ahaan waxaan soo kacaamay suugaantu xoogga lahayd muxuu ahaayey bulshada wax ka bedelaysay siinleydii deynleydii muxuu ahaa waxaas oo dhan waa dhegeysan jiray waan ku ficnaa aad baan ugu. laakiin fanaan iyo waxaad taageerto imika halkan dee runtii waan dhegeystaa heesaha kuwa wadaniga baan jecelahay. kuwa wadaniga haddaynu intaa kaga tagno dhinaca siyaasadda xukuumad aada adigu qeyb weyn ka ahayd inay guuleysato ayaa talada waddanka hayso oo madaxweyne biixi uu hogaaminayo bal hogaaminta madaxweyne muuse biixi iyo xukuumaddiisa muddada 2 sana sidaad u aragtaa? runtii marka hogaamiye la qiimeynayo ama xukuumad waxaa saldhig u ah qiimeynteeda 3 qodob. kow ballamihii hogaamiyaha ama xukuumaddaasi ama xisbigaasi uu ballan qaaday siday wax uga fulayaan. 2 caqabadaha iyo duruufaha adag ee ku yimaadee la soo dirsa siday uga dabaalato ama u xaliso. 3 fursadaha ku yimaada siday uga faa'iideyso ama sida iyadu fursado u abuurto. markaan anigu ka duulayo qodobadaas runtii waxaan isleeyahay anigu waxaan u arkaa in madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay dadaalayaan si fiican u shaqaynayaan muddada ay xilka hayeen wax badan qabteen. laakiin intaa aad sheegtay adoo ka duulaya ma qabteen wixii aad bulshada u ballan qaadeen? waxaan qabaa xukuumadda madaxweynuhu garwadeenka ka yahay waa buulcaws weli muddo badan baa u hadhay oo ay xaqiijin karaan guulo fara badan iyo barnaamijka xisbiga ay xaqiijin karaan. waxaa dowladnimaduna waa qori isu dhiib waa gurigaa la dhisaya marba injineeradu iska bedelayaan inuu hore u socdaabaa muhiima. waxaan aaminsanahay maxamuud ahaan in hayaankii iyo geedigii qarankani uu hore u socdo ee aanu dib u socon. wuxuu yidhi madaxweynihii maraykan ee Abraham Lincoln, I am a slow walker, I never walk back. anigu waxaan ahay nin qunyar hore u socda laakiin dib uma socdo. tusaalaha waxaa ka dhigay Somaliland hore u socotaa dib uma socoto. laakiin maxamuud ma waxaad hor socod u aragtaa in waddankii ay jabhada ka dilaaceen bariga galbeedka bulshadii kala qaybsan tahay xisbiyadii muddo 2 sano ay murmayaan khilaaf taagan yahay ma intaasaad u aragtaa in hor socod? waxaa laga yaabaa bulshadu qaarkeed inay dhinac wax ka eegaan 10 oo qof keliya oo ay arkaan duruufaha aad sheegayso shaqo la'aanta baahsan shaqo la'aan jirta qabyaaladii oo sii baahaysa muxuu ahaa dagaalo sokeeyo deegaanada meelaha qaar ku soo noqnoqonaya muxuu ahaayey doorashooyinkii oo dib u dhaca doorashooyinkii muranka xisbiyada waxaa laga yaabaa dadka qaar inay dhinaca uun ka eegaan oo welweliyo cabsi ay markaa dareemaano ay yidhahdaan mustaqbalka Somaliland buu madowya. dad fara badanna waxay ka eegayaan waxyaalo fara badan oo kaloo wanaagsan oo yididiilo iyo yuhuun. anigu maxamuud ahaan waxaa ka mid ah kuwa rajada weyn qaba ay yuhuunta iyo yidilada qaba. maxaa saldhigu ah Somaliland aqoonteena da'yarteena aqoontoodu maalba maalinta ka dambaysa way sii kobcaysaa. kaabayaasheena dhaqaale iyo dhaqaalaheenu way kobcayaan sanad ka dambaysa. dowladnimadeenu marba marka ka dambaysa way sii hana qaadaysaa way sii adkaanaysaa. amnigeena guud iyo hay'adaheena amnigu way sii kobcayaan way sii korayaan. mashaariic maalgashi ayaa dalka ka socda dekadii baa la balaarinayaa jidkii dheeraa baa socda. waxay nagu dhiirin gelin doonaan in dad badani aynu dan abuuro ummado badan inoo yimaadaan oo fursado badan aynu helo.
waxaan arkayaa in aynu waxyaalo badan oo wanaagsan inoo socdaan ma dafirayo waayaha iyo caqabadaha inoogu xeeran waxaynu u baahannahay inaynu caqabadahana ka gudubno inagoo ummadoo wada jira fursadahana ka faa'iideyno ayaa lagama maarmaan waxaa waajiba in waxa togan ee dalkeenna ka jira ee inoo socda ama xukuumadda wado inaynu ku taageero oo ku bogaadino wixii taban iyo khaladaadkana aynu muxuu ahaa toosino taa macnaheedu maaha xukuumadda madaxweyne muuse bixi dhaliil male mana qaldami karto maaha xukuumad waliba qalaad bay gashaa dhaliil bay leedahay way shaqadaa leh iyo dowladnimada lafteeda marka anigu waxaan ahay qolada dhinaca wanaagsan wax ka eegaya wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray Winston Churchill ayaa halkudhig weyn buu leeyahy oo ah a pessimist sees the difficulty in every opportunity and optimist sees the opportunity in every difficulty yani dadka wax baasaystaa dhinaca taban bay dhibta ayay dheef walba dhib bay ka eegaan kuwa aan wax baasaysanina waxay wax ka eegaan dhib walba dheef bay ka dhex eegaan markaynu u tagno arrinka ugu weyn ee muddada 2 sano ayaa marka jabhadaha iyo arrimaha laga tago wax weeye khilaafka dhinaca doorashooyinka xisbiga kulmiye adigu aad ka tirsantahayna waxa lagu eedayaa markasta in uu muddo kordhis samaysto oo aanu doorasho qura waqtigeedii ku qaban dhaliishaas ma ku muuqata maya si saraaxad leh doorashooyinka dalkan dib u dhaca ku yimi gaar ahaan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka waxaan aaminsanahay inay qarankan ku tahay dhibaato dhiigbax iyo dhigxumo hase yeeshee dib u dhaca doorashooyinka waxaa keenay caqabado iyo qodxo ku xeeran oo horyaal oo aanay sabab ama aan eedeeda loo xambaarin karin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo keliya waayo waa xil wadareed doorashooyinku maaha wax nin tuurta keliya uu ku sito muddo kordhimuhuna maaha wax kulmiye keligii caadaystay ama uu leeyahay waa wax soo taxnaa somaliland oo marka duruufo yimaadaanba ilaa madaxweyne cigaal ilaa madaxweyne daahir yaale madaxweyne siinaayo madaxweyne muuse bix afartaa madaxweyneba mar walba muddo kordhino duruufo keeneen baa imanayay marka ma qabo waxaanu xisbi lahaan anagu arinaanu keennay marka waxaad leedahay khaladka waana lala qabaa inay dib u dhaca doorashooyinku markaynu tusaale usoo qaadana tan ugu dambeysay xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u ahaa dalkan in doorasho wakiila ka dhacdo madaxweynuhuna way ka goonay ilaa iyo intuu ku sigayay muxuu ahaaye beenaale markhaatigiisu fogaya waa arrin loo wada ogayay waxaa doorashadaasi muddadii hore oo dhan ay wadaantu ka jiidmi weyday xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani laakiin oo diiday commission awood muddo xileedkiisi aanu dhammaan inuu doorashada qabto ayuu diiday laakiin maxamuud guddidu garsoor bay ahayd garsoorkii hadduu xisbigii mucaaradka uu leeyahay kuma kala sooneen idinka xajadeedii ku dhegsaneen maxay ahayd guddida aad u kala diri weyn waxa annaga xajo gaara looguma dhegsanin muddo xileed guddi doorasho oo aan dhammaan in la eedeeyo annagu waxaanu arkaynay qadaf oon ceed cad oo bannaanka la keenina ma jiro arrintaasi saamayn wuxuun bay salka ku haysay dhiciddii xisbiga wadani ee doorashadii madaxtooyada waqti badan baa halkaa kulmay waana xil wadareed mas-uuliyaddaa ma ahayn mid qoorta naloo saari kara annaga ilaa hadda waxay taagay khilaafkaasi guddidii hore markay iska tagtay iminkana guddidana laysku hayaa khilaafkiina weli wuu taagan yahay maxamuud muddo 30 sano ka badan ayaa siyaasadda kusoo jirtay somaliland ma ahaysaa maanta oo bulshada somaliland odhan kartaa waxaas ayaan xal u arkaa si doorasho u dhacdo guddi doorasho lagu wada kalsoon yahay u yimaadaan xasan waad mahadsan tahay guddiga doorashooyinka qaranku xeer baa jideeyey sida uu ku imanayo iyo tiradooda iyo halkuu ka kala imanayo waxaa la mariyaa 3 shaandho dooraysa waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland baa dhinacyada kala duwan ku ururiyaan dibna wuxuu u gudbiyaa shirgudoonka golaha wakiilada shirgudoonku wuxuu u gudbiyaa guddiga arrimaha gudaha oo ay tahay inay soo qiimeeyaan kuna eegaan shuruudihii inay xubnaha ay buuxinayaan ka saddexaad waxa weeye goloweynaha wakiilada ayaa la horkeena oo ah maxkamaddii iyo hay-addii garsoorka ah markay halkaa ka gudbaan mas-uuliyaddaasina waa dumadooda
markay halkaa ka gudbaan xubnahaasi waxay sharciyan yihiin guddi doorashooyin oo qarankani leeyahay waana la dhaari xisbiyada mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay duraan xubnaha qaar ama dadafeeyaan hase yeeshee cidda hubinaysaa eedayntaas inay sax tahay iyo in kale waa goloweynaha wakiilada waa ahaydii garsoorka ahay maanta anigu waxaan u arkaa somalilan khilaafyadani kuma cusba duruufo ka adag bayna soo marayno xallin oo ka soo gudubna oo halkaan kugu lahaa anigu waa niyad samahay khibraddeedi iyo bisaylkeedii baan leedahay marka khilaafyada noocan ee siyaasiga yimaado 3 nooc baa looga gudbaa mid waxa weeye kow wada hadal toos ah oo dhinacyada daneeyayaasha ama jilayaasha doorashadu ay wada yeeshaan oo muxuu ahaayey ay dee xaliyaan wax ka labaad waxa weeye dhexdhexaadin in la dhex galo oo hab dhaqana labadaasiba waa hab dhaqana oo la eego waxa isku hayaan ka saddexaad waxa weeye la qaran baynuna waxaynu isku jiraynaa laba nidaamkeenii dhaqan iyo nidaam dowladnimo dowlad baynuna waxa weeye waa inaynu garsoor iyo garnaqsi ku kala baxnaa oo haddii golaha wakiilada maanta laga cabanayo oo mucaaradku leeyahay shuruudihii si fiican umay eegin oo way iska ansixiyeen xubnaha waxaa la gudboon inay maxkamadda dastuuriga dii dacwad ka furtaan oo markaa maxkamaddu ay hubiso in xubnahani ay yihiin xubno xilkan qaban karo shuruudahan buuxiyeen marka dariiqyooyinkaa kala duwan oo dhan baa inoo furan inaynu khilaafaadkeena ku dhammaysano waa waxaynu ku soo caanamaalay waa waxaynu ku kala bixi jiray isu tulaale isu tanaasul waxaanu maxkamadda suuriya kaga tagnay xasanow 80 cod kursi madaxweyne waaba si xubin aynu isku hayno markaa dariiq sharci baa la mariyey xubnahan hase yeeshee dhinaca kale waa lagama maarmaan in commissionkani helo kalsoonida dhinacda ay u garinaqayaan taana waa diraya laakiin maxamuud taariikhda waad ogtahay intaasoo xubnood xitaa xilligaad xukuumadda ku jirtay ayaa la celiyey kulmiye oo mucaarada ayaa qofka markaan ku kalsoonay dib u celiyey fadal baa la celiyey wadani laga celiyey idinka ilahaan cumar baa laydinka celiyey dad badan baa saa loo celin jiray idinku miyay cabdirashiid riyaraac oo shalay markaad wasiirka ahayd wasiirahay oo kula ololeynayey oo xisbiga kulmiye u ololeynayey hadday maanta wadani ka gawsaaday oo yidhahaan garsoor nooma noqonayo maxaa diidaya kulmiye ahaan iyo xukuumad ahaan inaad xubintaa ka bedeshaan ila way jiraan intaasoo muwaadin oo kale dee horta iminka xasan ninka la yidhahda cabdirashiid riyaraac waa hal qof commissionkuna waa 7 qof saamaynta hal qof oo xataa dee la duray uu ku yeelan karo commissionka intaa leeg ba isweydiin leh hal xubin haddii xubnaha kale oo dhammaantood aan buuqba ka soo bixin hal xubin waana la dhaarinaya qofka habeenna if weeye habeenna waa aakhiro waa la dhaarinaya waxa weeye dadku dee madaxu isuguma yaalla waxaa laga yaaba inaan anigu si wax u arko walaaladayada kale mucaaradka waxaa laga yaaba inay si wax u wada arkaan waana nolosha sunnaha nolosha weeye oo wax walba iskaga aragti ma noqon karo laakiin waxaa jira dee dariiq aynu u samaysanay in waxaan lagu kala baxo oo ay maraan 3 shaandho ayaa la marinay madaxweynaha horeeya shaandhada labaad waa guddi waa golihii ta afraad waa maxkamadda dastuuriga haddii xisbiyadu dawac isku afkartaanna waa meesheega marka dee anigu saasaan u arkaa arrinta haddaynu intaa kaga tagno khilaafka doorashooyinka xukuumad baad muddo 7 sano ka soo tirsaneed isla xukuumad kale oo kulmiya ayaa dhalatay labadaa xukuumadood markaas barbar dhigto maxay ku kala xukuumaddan kaga wanaagsan tahay maxaa idinka leedinkaga wanaagsanaa ma aragtaa anigu waxaan aaminsanahay horta dee qiimaynta shacbiga ale oo bulshada ayaa qiimaysa laakiin annagu waxaanu nahay xisbi keliya oo laba muddo xileed ku guulaystay taladii dalka waa guul weyn oo siyaasi ah oo badi xisbiyada afrikaanku aanay gaadhin madaxweyne siilaanyo wuxuu xaqiijiyey xisbigii iyo weelkii uu sameeyey ee ku tartamay ee madaxweynaha ku noqday ee uu ka tanaasulay inuu madaxweyne kale oo saaxiibkii uu mar labaad uu hogaamiye ka noqdo waa guul weyn oo siyaasi ah
oo rikood ah waxa weeye annagu laba kulmiye ma nihiin hal kulmiyaanna waxaanu iskaga midnahay hami iyo himilo waxqabad baanu wada leenahay barnaamij midaysan oo ah muddaxileedkii koowaad iyo kii labaad abaanu leenahay oo mid walba odhanayo muddaxileedkii saasaanu qabanay koowaad ka labaad waxaa halkaasaanu ka qabanaynaa sektarka waxaasaanu ka qabanay ka waxaasaanu ka qabanay barnaamij isku mid ah isku xisbina waana waa laga yaabaa inaanu ku kala duwanaano laba hogaamiyo oo muxuu ahaa kala dee wuu jiraa bini aadamku leadership styles baa jira gaadaalo awrtaaba leh awr waliba hasha siduu abaahiyo qaab gaar ah dee inay kala duwan yihiin labada hogaamiye waa laba qof oo kala duwan muxuu ahaa duruufaha labada xukuumadood hareeyey ama ku iman kara kala duwanaan kara oo kala duwanba waxaa kale oo jira tiiman hogaamiyuhu tiimanka uu cugtay ama kaaliyaashiisuna badankooda waa kala duwan yihiin marka laakiin dad isku xisbiya baa labada hogaamiye aad soo hadal qaaday saad u kala aragtaa markaas barbar dhigto Siinayo iyo Muuse hogaamintooda dahal waxaan qabaa rag qori isu dhiibayay oo midna meel wax soo gaarsiiyey ka kalena halkaa ka sii qaaday waanu arkaa dee qiimaynta anigu si togan baanu arkaa muxuu ahaayey waxba dee hoos ugu dhaadhici maayo hadda oo odhan maayo khasadaasuu leeyahay taasuu leeyahay dee shacbigan taa u diinayo waad mahadsan tahay xukuumaddii aad ka tirsaneed ee wasiirka u ahayd marna madaxtooyada marna duulista iyo hawada inta badan waxaa lagu eedeeyaa in arrimo musuq maasuq ay waddanka ka gashay xataa xubno ka tirsan xukuumaddan maanta ayaa sheega in wasiiradii hore ay wax lunsadeen eedaha maxaad kaga difaacaysa guud ahaan xukuumaddii xasan baad mahadsan tahay anigu horta dee ma maqal xubno wasiiraahoo yidhi xubno kaloo wasiiraaba dee muxuu ahaayey musuq maasuq sameeye ma maqal laakiin dee waa arrintaasi waa eed iman kartaa sideedaba dowladaha laguma qiimeeyo xanta iyo xasanada dowladaha waxaa lagu qiimeeyaa waxay qabteen achievementskooda waxay qabteen baa lagu qiimeeya xukuumaddii aan ka midka ahaa madaxweyne Siinayo garwadeenka ka yahay waxaanu lahayn hami waxaanu lahayn himilo waxqabad baanu lahayn himilo waxqabad iyo hami wax urursina waa laba dareen oo kala duwan oo aan geli karin qalbiga qofka iyo qadiyadda howlwadanada qaranka u taliya manihin ummad hodana oo xoolahooda iyo xeradoodu aanay isdibin xeeradeennu ama xeerada qarankeennu ma laha laba xag ee waxay leedahay hal xag waxaan leeyahay kooxda markaa talada haysaa ama iyagaa xagta ama dalka iyo dadka ay u xagaan sidaa darteed waxaa xaqiiq ah inaanu u xagnay dalka iyo dadka haddaanu xagan lahayn horumarkaa muuqda ee faraha badan ee maanta markaanu xilka ka tugnay la wada arkayo ee raadadkooda yaallaan ee cidina aanay qarin karin dee ma muuqdeen muxuu ahaayey waxaas oo waxqabadii ma qabsoomen muddaduna 7 sano ahayd marka waa eedo waa dacaayado iyo danni aan xaqiiqo ku fadhiyin oo beena DP World ayaa waxaad ku wareejisay dekada berbera ilaa haatanna wax muuqda oo shirkadaasi ay ka qabatay dekada ma jiro idinka waxaa laydinku eedeeyaa in hantidii qaranka aad dhaafsateen xaquuqalid eedaayada maxaad kaga difaacaysaa annagu xukuumad ahaan qarankan hogaamiyihii iyo kaaliyaashayadu yool iyo abaar sugan baanu arkayn hogaamiyuhu wuxuu kaga duwan yahay dadka uu hogaamiyo wuxuu arkaa hir aanay iyagu arag waxbuu hilaadiyaa waxaanu arkaynay qarankani inuu u baahan yahay maalgashi oo aynan dayn heli karin deeq cidina hasiisana 29 sano aynan helin waxaan u aragnay inaynu cad cid wada guullo oo danaheenna aynu isku danaysano oo maalgashi samayno dariiq dunida ku cusub maaha waa dariiq dunida isticmaasho dowladaha kobce dhaqaalaha la aqoonsiyay baa sameeya arrintaa marar badan baan ka warramay taariikhdaana sheegi doonta
xaqoqalin maanu dhaafsan laakiin ummadda waxaan u keenay himilo weyn oo ay ku baraari doonto waqti aan fogeyn kadib waa socotaa waa taa maanta maalin dhow dhammaanaysa waddadii kooridoorku wuu inoo socdaa maalintaynu labadaa iska helo somalilan waxay noqonaysaa malka ganacsi oo meel walba looga yimaado waxaynu kabi doonaa trade deficitkii muxuu ahaa dalka aynu walaalnahay dariskana Ethiopia ee 700 milyan sanad walba aynu bixin jiray dhigbaxayna waa baynu soo celin doonaa waa aragti fog oo xaqiiqo ku fadhida dadkii maanta maalintii DBL ka shaqeynayay ee walwalsanaa marka musharaka ugu tagno xubnihiya aniga saaxiibaday wasiirada ee namaagay marka berber tago wayna bogaadiyaan waana na salaama taas waxay muujinaysaa inay ahayd aragti aan wadnay mid guuleysatay maalinba maalinta ka dambaysana shacbigu wuxuu ka marxaati kacaya in aragtideeda ahayd aragti sax marka ummadda xaqoqalin iyo wax aloo la geliyo maanu dhaafsanay waxaan u keenay mashruuc weyn oo taariikhda geli doona Soomaaliland سعادة وزير محمد حاشي وزيرك مالية حلقان سنة كهرة waxa uu sheegay in lacagtii kirada ahayd dekada berbere hore loo soo qadintay oo miisaaniyada ku jirin lacagta meed ka qaatay maya anigu horena waa la weydiiyo yaa qaatay markaa dii anigu xogagal kamay laakiin wasiirkii madaxtooyada maya anigu maanta dee odayaasha xisbiga kulmiyaan kamid ah xukuumadda madaxweyne Muuse Bixide wasiir kamay anigu waxaan cadeynayaa xukuumadda Axmed Siilaanyo ee aan kamid ka ahaa inay lacagta aanan sii qadimin madan iliyartu isqabatayna hore aan uga iri haddana waa ku celinaya arinta kale intayna imaraadka waxa ka bixin saldhiga ayaa jira saldhiga horta miyaad kireyseen mashaariic dhaafsateen arintaas horena waa uga jawaabay madal weyn baan kaga jawaabay saldhiga labada eray la isku xoqaami la yado erayo kala duwan baa xisbiga kulmiye ka soo baxa waa kireynay iyo muxuu ahay maanu kire mashaariic baanu dhaafsan labaduba heshiiskeenii ku jira mashruuc hadii wax bilaash maynaan bixina waa kireyn waxaynu se ku kireynay mashaariic horumarineed bahida lacag mahay marka mashaariicda horumarineed si bulshada Soomaaliland u fahanto lacag ahaan intee lagu qiyaasay mashaariicdaasi intee ku kacayeen oo kale ama mashaariicdu koo iyo laba iyo saddex waxa ugu luxdan wadadaas wadada 245 kilomitir ah baa ugu luxdan waa mashruuc aad u weyn oo laf dhabar dhaqaaleena iyo qarankeena waa lacag fara badan buu ku kacay oo aan ka yarayn muxuu hasaan qiyaasayo 90 milyan ka yarayn lacag badan buu ku kacaya inteena kalena way jiraan oo fara badan heshiiska ku qoran inteena imaraadka carabta iyo arrimaha ka bixin xilliga khilaafku taagnaa maalin baad waxa tiri labayn mayne ee waxaan la soconaa xulfada Sacuudiga iyo Imaraadka Carabta maanta Sacuudiga xataa wuxuu taagan yahay xoolihii Soomaaliland uu yiraahdo ha ka soo qaataan waraaqda caafimaadka Muqdisho maxay ka faa'iidada leedahay Soomaaliland xulfada runtii dee waxay ahayd mowqifkan anagu qaadan ma ahayn horta aragtidaasi ma ahayn mid aragti shakhsi ah waxay ahayd go'aan golaha wasiirada oo madaxweynuhu gudoominaya ay gaadheen siyaasaduna waa saadaalin iyo maluuga la isku beegbeego marka anagu waxaan u arkaynay markaanu eegnay amniga dalkan yeenu nabadgelyada wadaagnaa yeenu ganacsiga wadaagnaa yeenu bulshadeenu dhulkay ku dhaqan tahay ee ku tarantay ku tanaade waa dhulkee waxaad ka talinaysaa waxyaalo fara badan waxaanu ka talinay bulshada Soomaaliland inay ku dhaqan tahay wadamada khaliijka isqabtay intii badnay bay ku noolay wadamahoodu dhex yaallay mas'uul baanu ahay waxaanu arkaynay muxuu amniga ayaynu wadaagnay waxaanu wadaagnaa wadamadan Iran ma wadaagnay amnigeena ganacsiga Iran ma wadaagno meeshana Iran iyaba isku hayay iyo muxuu ahaayeen iskuma hayn wadamada khaliijka Iran iyo wadamadii khaliijka soo qadar xiriirka meedan jiran ma xiriir maanu jirin laakiin waxaan anagu meeshan Yemen markaan arrinta ka hadlayna mowduuca anagu dee waxaanu arkaynay in Yemani ay isku ballaarinayso mandiqadan qalaasana ka wado ilaa iyo maantaan aaminsanahay waana xilhay anigu qofaan
marka waxaynu ka faa'iido waa qiimeyn gaar ah laakiin anigu waxaan leeyahay difaacaya go'aanka iyagu aragti sax ah ku salaysnaa iska qoomamayn maayo xubnihii saaxiibada iyo madaxweynahana ku dhaliili maayo go'aan sax ah waa maxamed markaynu arrinkaa ka tagno arrinta adiga shakhsiyan iyo hamigaaga siyaasadeed horta ma doonaysaa in aad madaxweyne mar un mustaqbalka somaliland ka noqoto waa hubaal inaan leeyahay hami iyo han weyn anigu siyaasadda kama soo fuulin fiiqa iyo figta u sarreysa balse waxaan ka soo fantay fiharda u hooseysa waxaan soo qabtay xilal badan oo kala duwan dee maanta waxa ii dhiman waa kursiga dalka ugu sarreeyo haddii alla ii qadaro markaa dee wararka soo baxaya waxay sheegayaan in aad loolan ugu jirto jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye shacabka somaliland inta badan bay isweydiinayeen arrintaas maanta shacabka somaliland ma u cadaynaysaa in aad doonayso jagadaas waxaan ka mid ahaa xubnihii farkotiriska ahaa ee madaxweyne axmed siilaanyo kala qayb qaatay budhigii aasaaskii iyo yegeleelidii xisbiga kulmiye waxaan ka mid ahaa haldoorkii u horseeday xisbiga kulmiye guulihii kala duwana ee uu ururada uga soo gudbiyey xisbiga iyo labadii doorasho madaxtooyo ee 2010 iyo 2017 ku guuleystay waxaan ka ciidamiyey doorashooyinka madaxtooyada darka ceelka meesha ugu ciriiriga badan ee loo yaqaan biyo culusta waxaan si daacadnimada ula soo shaqeeyey oo u dhisay hogaamiyaashii xisbiga kulmiye ee iga lahaa mudnaanta iyo miilada waxaan maanta u arkaa in ay tahay amintii aan hogaamin lahaa xisbiga kulmiye sidaa darteed marka xisbiga kulmiye shirweynihiisa la qabto haddii alla idmo waxaan isu soo taagi doonaa jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye marka maxamed ma waxaad doonaysaa in jagada aad ku tartanto mise in lagu wareejo sidii loogu wareejiyey madaxweyne muuse biixi cabdi xilligiisina lagu wareejiyey maye waxaan doonayaa inaan ku tartamo haddii madaxweyne muuse biixi uu mar kale uu damco inuu jagadaa isu sharaxo uu isu soo taago ma marka madaxweyne muuse biixi uu haakah yidhaahdo ma kula tartamaysaa horta jagadaa ma kula tartamaysaa hadduu isu soo taago madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi wuxuu hayaa laba xil mar waa madaxweynihii qaranka marna waa guddoomiyihii xisbiga kulmiye wuxuu xaq u leeyahay labadaba inuu mid walba mar labaad isu soo sharaxo dadka waxaa laga yaabaa inay iskaga qaldan yihiin labada arrimood waa kale laba maysin madaxweyne muuse biixi ma filayo inuu isu soo taagi doono jagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye mar labaad waxaanse filayaa inuu isu soo taagi doono mar labaad jagada madaxweynenimada laakiin haddii ay timaado oo uu isu sharaxo guddoomiyenimada xisbiga kulmiye ma kula tartamaysaa dee ma filayaba baan ku idhi haldoor in badanoo haldoorka kulmiye ka mid ah ayaa waxay aaminsan yihiin in la kala saaro talada hogaaminta xisbiga iyo talada hogaaminta qaranka taasoo micnaheedu yahay inaanu madaxweynuhu mas-uuliyadda ballaadhan u hayo kaga mashquulin maamulka xisbiga aan kuugu celiyo haddii uuse soo sharaxo ma la tartamaysaa xasanow horta madaxweyne dee cidiba lama tartamto aan kuu saxde madaxweyne cidiba lama tartamto laakiin anigu waa aragtidaydan dee kuu sheegay kulmiye wuxuu lahaa arintaasi maaha arrin ugub ku ah kulmiye waa arrin curada uu soo jilay in la kala saaro hogaanka xisbiga iyo hogaanka dalka inuu kala saaro wuu soo dhaqangeliyey wuu soo tijaabiyey dhib kama arag dheef buu kala kulmay marka aniga aragtidaydu waa sidaa waxaa jira guddoomiye ku-xigeenka xisbiga oo maxamed kaahina nin ay saaxiib dhow yihiin muuse biixi cabdi haddii uu isiga ku wareejiyo aduu soo aragtaa wasiir maxamed kaahin axmed madaxweynaha waa saaxiib
aniguna madaxweynaha saaxiibaan madaxweynahana waxaan rajaynayaa inuu dee labadayadaba waa saaxiibkaya noo xabsooro wasiir maxamed kaahi culmaniin labadayaduna saaxiibaan waa ku ixtiraamaya damaciisa xaq buu leeyahy aniguna damac baan leeyahay rag kaloo kulmiyaahina damac buu yeelan karaa xilligii maxamed kaahi garta u lahaa ama ku doodi lahaa in lagu wareejiyo xisbiga kulmiye waa la soo dhaafay maxamed wuxuu qaatay xil wasiirnimo oo shilis maanta wuxuu ka mid yahay hoggaanka xisbiga ee muddaxileedkiisii dhammaaday ee tiisa laftiisa lagu tartamayo marka kulmiye waa xisbi qoor badan oo aan cidina wax isa siin karin wuxuu ka dhigan yahay sidii xagalada geela ee la yidhi xagala geel wax gunti lagu qaado ka weyn marka fursaddaasi waa laga soo gudbay haddii aada weydid shagada guddoomiyaha xisbiga kulmiye maxaad yeelaysaa waxaanay siyaasi waayo aragga oo yaqaana siyaasaddu inaad yidhi guul darro iyo guul libna laysma siiyo dee labadu waa ku talagelaya maxamuud intaynan u tegin arinta dulista iyo hawada oo muddo dheer aad soo haysay iyo wadahadallada soomaaliya iyo somalilan arrimaha waxaa jiray mashruuc xunba weyne la odhan jiray oo xukuumaddiinii lagu eedeeyo gaar ahaan adigaba in aada musuqmaasuqdeen mashruuca maxaad ka ogtay mashruuca xunba weyne dadku waxay isku qaldaan mashruuca biyo ballaarinta caasimadda iyo mashruuca xunba weyne mashruuca biyo ballaarinta caasimadda mashruuc weyn oo xukuumaddii kulmiye axmed suuleyn garwadinka ka ahaa aad qorshe u dhigtay buu ahaa oo lacag 60 milyan ku dhow maanta ay gelayso oo 3 faysa mashruucaas xunba weyne wuxuu ahaa mashruuc dowladda imaaraadka bixinaysay xogagaal kama ihi mana ogi muxuu ahaa mashruucaas mashruuc xukuumadda somalilan loo dhiibay oo aynu inagu maamulaynay maaha yaa maamulayay dowladda imaaraadka maamulaysay marka gacanta xukuumadda ma soo gelin aniguna qof ahaan ima hoosabanayn wasiirka biyahana maan hayn marka uu yimid dalka ee la hadal hayeen oo wasiirka duulistaana layn ministerina uma ahayn guddidii madaxweynuhu u saaray madaxweynuhu guddi buu u saaray guddoomiyaha xubna leh kuwaana kama mid ahayn marka mashruucaasi yaa guddoomiyaha wax laga musuqmaasuqin ma jirto mashruucaasi wuu ragaaday farsamo ahaan dowladda imaaraadka in la weydiiyo wixii tafaasiil intaa dheeraadana xubnii dee wasiirada ahaa ee xogagaalka ka ahaa laga waraysan guddida ayaa guddoomiye ka ahaa maxamed biixi yunis arinta duulista iyo hawada dowladda federaalka ee soomaaliya waxay si rasmi ula wareegtay maamulka hawada ee soomaaliya oo ay somalilandna ku jirto sida ay sheegtay wasiirkii xilligaasi duulista iyo hawada jengeli waxa uu sheegay in hawada soomaalidu ay kusoo wareegto gacanta dowladda in maxamuud xaashi cabdi oo ahaa wasiirkii duulista xilligaa uu gacan ka geystay adigu gacantaas maxay ahayd ma maqashayse sida uu hadalka u yidhi saa maahay waxay ahayd waxaanu ka shaqaynaynay buu yidhi inaanu mashruucaasi gacmaha soomaalida soo galo oo kusoo noqdo marka waanu ka wada shaqaynaynay buu yidhi waana runtii mashruucan qaramada midoobay baa gacanta ku hayay sanadkii 1993 Butros Ghali uu xogeeyaha guud qaramada midoobay uu ahaa ayaa hawadii Soomaaliya markii qarankii Soomaaliya la oran jiray burburay go'aan ka soo baxay resolution ka soo baxay guddiga ammaanka qaramada midoobay loogu wareejiyay inay maamusho hay'adda ECAO iyo UNDP ilaa ay xilliga waxaana uu sheegay bundiska qodobadiisa kala duwan resolution-ka waxa gacanta Soomaalida dib loogu celin doonaa marka ay Soomaaliya ka dhalato dawlad awood badan oo baamusho cirkeeda badeeda iyo barigeeda ama dhammaan territory-geeda gacanta ku haysa saasuu resolution qoray qaramada midoobay baa gacanta ku haysa mashruucana Nairobi baa laga hagay waxaanu muddo wadnay dowladda Soomaaliya wada hadalla sidii mashruuca loo maamuli lahaa
go'aamaanu ka gaadhin istanbul nairobi baanu ku kulannay istanbul baanu 2 jeer ku kulannay waxaa nagu weheliya kulanada xogaalka ahaa hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan qaybta TCB la yaho ayaa magaranaysaa lagu weheliyey mar walba waxaanu ka wada hadlaynay sidii mashruucaasi loo maamuli lahaa 2 option baan horiyay inaanu kala maamulano 3 option baan horiyay in qaramada midoobay gacanta iskaga siixayso inaanu kala maamulano iyo inaanu deeyle 2 dawladood baan nahay mashruucan laga madax banaaneeyo maamulada iyo siyaasadda oo uu noqdo mashruuc ka madax banaan siyaasadda oo inta balqadiida Soomaaliya meel u dhacayso iyo Soomaaliland si waxaan u kala go'ayaan si weyn loo maamulo gaar loo maamulo Istanbul shirki ka dhacay waxa lagu heshiiyay in mashruuca si guud loo maamulo xaruntiisuna Hargeysa noqoto oo laga maamulo saas lagu heshiiyay dawladda Soomaaliya dhammaan ballaamihii arrimaha aynu ka galay way ka baxeen haddana waxay hawada ula wareegeen si jujuuba mana maamuli karaan yaa dayacay waxaan aaminsanahay dhinacayna dayac ka yimi ma jiree si jujuuba bay ula wareegeen magacii ummadda Soomaaliyeed iyo kursigii qaramada midoobay ee lahaayeen iyaga la aqoonsanaa ilaa inaga laynama aqoonsanay bay ka faa'iideysteen qaramada midoobay lafteedu qalad bay gashay waayo resolution-kaasi sidoo dhigayo niman maamuli kara bari territory Soomaaliyeed gacanta ku haya maaha iska daa wax kale magaalada Muqdisho ammaankeeda ayaanay gudaheeda gacanta ku hayn deegaanada ku xeeran baanay gacanta ku hayn waaba cir badqab laakiin waa kuwa ku qabtay hawadeedii hawadii miyaan ilaa Soomaaliland Muqdisho laga xukumo imika xasanow bad muxuu ahaayay mashruucaasi uu sidoo ku socdo waa fashilmaya waayo xogaal baan ka ahay dishan sanado baan afishinka ku jiray dayuuradihii mari jiray hawada Soomaaliya in badan baa ka baydhay oo dhinaca badaha u leexday iyo wadamada deriska muxuu ahaa qalabkii yaalay Nairobi baa Muqdisho la dhigay oo meel la saaray kalaaskiisu wuu ka hooseeyaa maanta FIR-ka ay halka ku hayaan kalaaskiisu waa G markuu Nairobi yaalay inta uu ka fiicnaa F yabwa class F baa waayo Nairobi waa meel sareysa oo ilaa 4,000 feet ah hal iyo dheeraad halkani waa sea level qalab cusubna lama rakibin qalabkii cusba ee loogu talagalay Hargeysa iyo Muqdisho in lagu kala rabo ee labada ACC ahaana way xanibeen marka ma wadi karayaan dhawaaqiisaba adagba anoo khibradaada eegay wada hadallada iyo waxyaabaha ka qayb qaadatay wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland maadaama aad leedahay heshiisyada horeba Soomaaliya way ka baxday ma ku muuqataa in wada hadalladii la sii wado haddii aad leedahay hal la sii wadana yaad isleedahay garsoor ka noqda wada hadallada waan qabaa in la sii wado ma qabo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland qaabkii hore in loo sii wado waayo qaabkii hore waxa midha laga mehelin ee ahaa wada hadalka tooska conflict marka laga hadlayo alternate dispute resolution ka dunida sida khilaafaadka dawladaha loo xaliyo 4 nooc baa loo xaliyaa nooc la yiraahdo negotiation wada hadal labada dhinac ay wada galaan oo cidi u qaban qaabiso oo facilitation third party aan awood lahayn doodna waxba ku lahayn laakiin isu keeno waa noocii aynu hore u galay inagu ee fashilmay ee dawladda Turkiga isu keenjidi jirtay inta qol soo isugu kala xalisay naga tagtay qaybta labaad hal mediation dawladdu la isla garto labada dhinac isla garteen ayaa faqaare ayaa yeedin dhexdhexaadinaya qaybta saddexaad waxa la yiraahdaa arbitration waa in labada dhinac loo karnaqaa oo go'aan soo baxa qaybta afraadna waxa la yiraahdaa conciliation afarta nooc baa wax loo xaliyaa anigu waxaan u arkaa maanta Somaliland khibradaan u leeyahay iyo waa aragnimadayda iyo aqoonta aan u leeyahay dunida khilaafaadkeeda sida loo xaliyo Somaliland waxaynu u baahanay nooc la mediation oo ah in la dhexdhexaadiyo dib ma cidayna dhexdhexaadsa haddii dawladaha derisku galaan haddii dawladahan reer Yurub qaarkood galaan dawladaha Carbeed haday soo galaan dib ma waayo maaha legally binding
wax ina ajburaya go-aan sharci iyo wax laynagu qasbaya ma jiro waxaynu inagu raalli ka nahay labadeena dhinac baynu isla yeelina halka arbitrationku ka yahay in lagu xukumi karo marka anigu dib uma arko waa la isla eegi doonaa dowladaha badda dafaynayo hadday jabuuti ku jirayso hadday muxuu hadda wadamadan kale igaad ku jirayso haddii waayo kayskeenu waa kays cad oo dunidoo dhammi og tahay منطقة جيسك أفريقيا مدة سوماليلاند حركة هاي اللي 20 سنة هاي لابد الدولة بقرن نقضي وإريتريا يساوي السودان لابد وين كيس في عنا دنيا اللي بينو وقت ما له البنا كيس كينو ولا شيء دنيا ويسي فهم يسا وأنا لازم سي برنا يا أنا ما قبل أركتي هذا كيس كينو ولا قصيني تبي وحنا أمي سنة إن دنيا أسوق وحشو منطقة هالبولة أنا وين كنا والدنيا السامين كله intii aad wasiirka dunista iyo hawada ahayd maadaama hadda aad madaxweynenimo iyo arrimahaas in aad u hanqaltaagayso maxaad is leedahay madaarada Soomaaliland waad ka qabatay oo maanta waad ku faanaysaa muddo 5 sano baan wasaaradda maamulayay oo madaxweyne Siinaay aan ka kaalmeynay xilka ummadda u dooratay madaxda iyo mas'uuliyiinta xilalka loo dhiibiyo waxa lagu qiimeeyaa meeshay tageen halkay joogtay iyo markay ka tagaan halkay joogtay waxa lagu qiimeeyaa oo marka wax qabadade waxa lagu qiimeeyaa madax dhitada iyo dhaxalkay ka tageen waxaan aaminsanahay maalintii aan tagay xilkaas muddo 50 sanadooda ayaa madaarka baarada Soomaaliland waa madaaro qaarna iska garoono ciidan yihiin labada garoon ugu waaweyn waa garoonka Hargeysa iyo muxuu ka berbera maantana anigu waxaan u arkay in la xoog la saaro garoonka caasimadda iyo garoonka berbera oo ah garoon ganacsi noqon kara labada sano anigu xoog aan u arkay inaan saaro waayo awood inoo qaybsato dhaqaaleed madaarada kalena meenu heli karayn bulsho koobanna waynu nahay oo maanta gebigeeduba aan diyaaradaha hadaynu xitaa garoonada leenahay aanay ka degin kuwa ciidda baan ugu taagweyna kuwa yargeeyo dadka geeya markaa 55 sano 1958 ayaa la dhisay garoonka caasimadda Hargeysa isbedelkii ugu laxaadka weynaa taariikhda aviationkeena ayaa muddadii 5 sano ah aan nasiib aan u helay inaan xaqiijino waxaanu upgrade garaynay garoonkeeni runway waxa ugu muhiimsan garoon waa dhabada laga soo dago dhabada 58 kii la dhisay dawladii rayidka waxba ku kordhin dawladii Maxamed Siyaad Barre 22 sano waxba ku kordhin dawladii naga horreeyay Soomaaliland waxba ku kordhin ayaanu ku guuleysanay inaanu ka dhigno dhabooyinka ugu dhaadheer geeska Afrika oo 3 kilomitir iyo 700 gaarsiin halkay 2 kilomitir iyo 400 ka ah waanu adkaynay dhabada hore way gabowday foundation adag baan u dhisnay waxaan ugu talagalay inay ka sugaan diyaaradaha waaweyn Airbus 310 Airbus 320 maanta ka wada degi kara tawa ku guuleysan waxaanu ku guuleysanay inaanu xayndaab sameeyno 13 kilomitir oo xayndaab ayaanu sameeyay dadkii dhulka waa lagu soo darkay waa la wareegay dhulkii runwayga waxa loo jiray 60 mitir ilaa qaarkood dhulka qaarna extension kana dawaaba la diganaaba dhammaan dadka muwaadiniinta wax waraaqa haysta iyo waxaan haysan inta waa ka banayn waa ku bogaadinaya shacabka Soomaaliland deegaanka deegaan sida nooga shaqeeyeen dhulkoodana kama iibsan wax lacag kama nusin laakiin hantidii taarihi iyo muxuu ahaayay beerihi iyo barkadihii iyo baliyadii dhamaantood lacagtooda way celin xukuumadda magdhowday nin kamid ah baanu beertiisa iyo baligiisa 160 kun ka siin ka ugu yar 10 kun baanu siin oo barkad buu lahaa marka waxa kamid ah qalab security baanu keenay oo security-ga madaarka dadka iyo shandada lagu baariyay baan muddada keen ku guuleysan waxaanu keenay dabdamis diyuuradaha hadii shil ku dhaco baqtiin kara waxaanu ku soo kordhinay waxaanu ballaadhinay dhismayaashii laga soo degiyay kuwii laga dhoofiyay ayaanu ballaadhinay waxa arrimahan aan ka hadlay fahmi kara bulshadii hore uga degi jirtay markii dambe ka dhoof jirtay xasano qofka ka soo duula Yurub wuxuu Soomaaliland Hargeysa iman jiray casarliya isagoo tabcaana maalintii aan ka tagay intaasoo diyaarado caalamiya ayaa yimi
oo flag carrierisa oo diyaarada dunidu aqoonsan tahay markaan meelaha tago yaa garoonkiina ka dega marka la yaaho markaan nana Ethiopian Airlines fly Dubai dunidu way faraxdaa waxay garataa sababo fara badan bay garan kartaa waxay ka soo degi jireen 6 subaxnimo diyaaradda uu qofku Heathrow ama Frankfurt ka soo raaco ee hal mar ka soo bedelo Dubai ama Addis 6 subaxnimo ka degi jiray marka dhalinyaro aqoon leh oo jaamiciina oo labeentii ummadda baanu keenay oo deegaanada Soomaaliya ka kooban ayaan madaarada ku soo kordhinay oo maanta qaabkuwa diyaaradaha hagaya fadhiisanaya ay yihiin oo soo tababaray marka waxay guul weyn bay qaranka u ahay laakiin maxamuud de lacagta xukuumaddu may bixin ee Kuwait baa bixisay inteeda badan lacagta Kuwait bixisay iyo taad meesha gelisayna waxa la leeyahay farqi weyn baa u dhaxeeyo lacagtii loogu talagalay meesha meedaan wareegay yadaas ma jirtaan horta xasan waan saxayaaye xugmooga xaajo waa biyay lacagta dawladda Kuwait ina siisay waan ka warrami doonaa waxaan ka warramayo xoogeeda xukuumad ahaan baan qaban waxaan ka warramayo faraha badan xukuumad ahaan baan xoogeeda qaban dawladda Kuwait waa ku bogaadinayna waa walaaladeen waxay ina siiyeen 15 milyan bay marka hore noogu deeqeen labada garoon baan u qaybin midba 4 iyo badh baan u gelin milyanka kalena midba 500 wuxuu ahaa consultantkii dadkii khubarada ahayd ee ka shaqeynayay mashaariicdan hadaba say u shaqeynaysa waxa laga yaabaa dad badan inay fahmeen markay maqlaan lacag fara badan oo ay dawladda jeebka loogu qoray waxaan xasuustaa xilwa waxa wargeys baa wuxuu qoray wasiirka dawlista oo 6 milyan loo soo dhiibo shan dadku soo qaato akoon ku shubta ilaa xadka way iska saalantahay waxa ugu saalan ee qof lagu oran kara waa adoo ribeeyay oo ila degtug baat ama xoolo qaad waa wax aad u sahlan ilaahay agtiisa wax ku weyn markaan ka warramo madaarka Hargeysa gaar isu dultaago 8 milyan iyo 500 iyo dhowr iyo 60 kun oo dollar baa galay maxaa lagu qabtay waxa lagu qabtay dhismaha dhabada dayuuradaha ee 3 kilomitir iyo 700 oo mitir iyo siligaas 13 kilomitir halka mitir ee siligaas waanu yamxiirin mashruuca bigda la bixiyay dawladda Kuwait baa mashruucan maamuleysay wax lacag dawladda looma dhiibin iyo wasaaradda dawladda sida mashaariicda qaranka loo maamulo waa sida mashruuca SDF Somaliland Development Fund saasa loo maamulo mashruuca dekada maanta ka socda ka jid ka socda dhammaan dariiqaas dawladdu lacag dawladdiisa gaba dhiibtay waxay u samaystaa iyada lacagta haysa bid baa la bixiyaa qofku markuu guuleysto khabiir baa la keenaa consultant baa inoo joogay dawladda Kuwait matalayay oo shaqadan eegayay oo marka uu qabto lacag looma qadimin shaqada uu qabto la eegaya quality-geeda ma baylaan ka gudbi kareen baa warqadda saxiixay waxa la soo marin jiray warqad cadaynaysa waxaas inay qabsoomeen buu khabiirku soo marin jiray deedna bidkaas saxiixi jiray deedna sidaasay ay ku qabsoomi jireen shirkadii dhisaysay garoonka waxay shirkad u leeyihiin in isku deegaantii cid kula tartantay iyo meel qandaraaska lagu bixiyay oo lagu shaaciyay ma jirin meena taas khaladkii ku baadahay de xasan wuxuu gal baanad hayne wala shaaciyay muddadan baa la qabanay oo iska dalkay dabad iyo gudaba laga soo qayb galay oo 7 shirkadood baa bid soo xiriyay shortlistkii soo galay shirkadii ku guuleystay qandaraaska Somaliland China Holo Group waxa ku xigtay shirkad 7 milyan iyo 500 waxa u dhaxayay 3 milyan baa u dhaxayay lacagtaynu haysanaa 4 milyan iyo barbay shirkadda Somaliland Holo Group 4 milyan iyo 400 baa bidkii ku keentay waxaan aaminsanahay oo aan ku dhaaran karaa shirkadaas inay ku khasartay mashruuca waayo faniska waxay ku qaadatay dadka wax dhisaa way wada yaqaan halka mitir $50 waxay ku qaadatay labadii leeyarka koowaad 60 sentimitir ahaa waxay ku qaadatay $12 mitirkii mitir square-kii ka 4 sentimitirna $8 way ku khasartay mashruuca kii hore gaar ahaan waayo cad baan wada guulay shirkadda iyana waxay doonaysay shirkaddu inay dalkan degto mashruucan ugu weytilgelin ka macaashto wuu garanayay ma aha khashin ninka de shirkadda leh wuxuu doonayay inuu mashaariic kale ka faa'iido oo la barto shirkadda dhisto anaguna waxaan doonaynay kharash yar in wax nalagu dhiso tusaalan ku siinaya xasan 8 milyan iyo 560 ayaynu waxa intaa le ku qabsanay garoonka Garowe oo 2 kilomitir ah oo waliba aan diyaarado waaweyn qaadi karin xijmi ahaan
waxaa ku baxay 10 milyan iyo badh baa ku baxay garoonka boosaaso 10 milyan baa lagu bixiyey isagoo runwaygiisu 1.7 yahay si 2.650 looga dhigo 2 kilomitir iyo 650 mitir waxaa lagu bixiyey iyo shaqooyin kale oo la qabanayay garoonada waa qaali tusaale kalaan ku siinaya garoonka dalka aynu dariskana Djibouti 2 garoon baa loo dhisaya mid Djibouti waa laga dhisaya midna Oboh 600 milyan oo dollar baa lagu dhisaya dowladda Shiinuhu kuma kilinaysa oo amaaha Jomo Kenyatta International Airport waxaa lagu dhisay extensionkiisii iyo qalabkiisii agabkiisii weynaa 650 milyan Turkiga Istanbul garoonka cusub laga dhisay 2 bilyan baa lagu dhisaya waxaan uga socdaa waxyaalaha garoonada waa kaabayaasha dhaqaalaha dunida ugu qaalisan iyo dekedu way qalab fara badan baa la keenay lacag ka badan buu garoonkeenu u baahnaa waanu ku celiidanay waxaan aaminsanayaan guulaysanay xasanow haddii wax lumaan oo tuuga meesha ku jirto lacagteega stationka dambe dowladda Kuwait nama siiseen way iyada maamulayso waxaan Kuwait fana waxay ka mid tahay hay'adaha dunida website-kooda waa la geli karaa qiimaynta dunidu sida u qiimay waxa ka mid yihiin mashaariic hay'adaha dunida ugu transparency badan afka Soomaaliga marka la ugu hufnaan badan marka waa dacaayado aan beena waa warar aan saliya raad lahayn waa dad aan muxuu ahaay cadaalad sameeyay dadka waxa gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa maxamuud ma jira wax khalada oo siyaasiya oo inta siyaasadda ku jirtay ilaa iyo asana ma haata ilaa imika ma haata aad gashay oo aad maanta isleedahay aad ka qowmimayso aad qofka bini aadamki waxna waa qabtaa qaladna waa galaa su'aal hore aad weydiisay baan lahaa dawladuhu qalad baa ka dhaca dhaliila yeeshaan waayo inagu bini aadam baynu hayo ilaahay baaba inagu dabiicadu inoo abuuray bay tahay inuu gafno rabbi wuxuu inagu tilmaamay gaf badane baaba leenu baynu ma oranayo weligii ma qaldamin ma oranayo dhaliil ma yeelan intaan siyaasadda ku soo jiray ka ku fiyay marar badan baan dhaliila yeesha ama qaladaad kale faahfaahintooda bugaagta aan qorayo ayaan arrimaha soo dhan iyagoo xiiso leh ku soo bandhigay waxa jiray wasiir ka tirsanaa xukuumadeennii oo abgaal oolani abgaal lagu magacaabo waxa uu sheegay oo bulshada ka codsaday in uu musuq ama wax isdabamarin sameeyo uu doonayay bulshada cafido adigu inna ma isleedahay waxba kugu leexdo bulshada ma la wadaaga samaanta qofku markuu xil hayo xil umadeed hayo waa dhici kartaa in wax kaga baydhaan laakiin anigu maanta waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland iga saamaxa waxaasan galay ma jiro hantida ummadan hantideedii waan ugu shaqeeyay waan ugu shaqeynaa laakiin ummadda kama shaqeysan laakiin maxamuud waxa la isweydiinayaa de markii aad wasiirka noqotay Hargeysa guriyo weyn kuma lahayn laakiin ugu yaraan imka ilaa 3 guriyo weyn bad ku leedahay hanti kala leedahay wasiirkana de mushaharkiisa waa la yaqaanaa marka dadku waxay isweydiinayaan hantida waxa ka keenay maxamuud xaashi horta oo beena guriyo badan Hargeysa kuma li misaal guriyo badan Hargeysa kuma li horta waa qodob kan maanta aad aynu wada fadhino waa igu kiro dadaan guriyo badan leey kala kuma jireen yurubna guriyo kuma li kaba iibsan waxaas waa warar iska dacaayada waxa weeye qofkuna de guri waa dhisan karaa saaxiib buu leeyahay wajib buu leeyahay siyaalo badan oo xalaal ah wax ku soo gali karaan ma macnaheedu marka qofku guri dhisto iyo laba guriba inuu tuug yahay hantida uma dhaxday inta soo sanadood baan soo jiray dhowr iyo 50 jir baan ah risaqaygaan lahaa qurbaan ka yimi halkan aan joogay waxba marka ma aha marxaati uma aha taasi inaan hanti umada ka boobay ama lunsaday waa dadafeynaya muxuu ahaayay waa waxaan waxba ka jirin qaranka waa u soo shaqeeyay aad baad mahadsan tahay maxamuud xaashi cabdi wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland aad baanu kaaga mahadcelinaynaa inaad waraysiga aqbasho intaasi ayaynu daawadayaal ku soo gabagabeynaa barnaamijkii xaladay toddobaadkan waxa marti ku ahaa maxamuud xaashi cabdi wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland tan iyo kulan dambe dhinaca farsamada ee kamaradahaasi waxa isku dibiriday iyo waliba editinka engineer Ridwan iyo waliba engineer Sido tan iyo kulan dambe nabadgeliyo amaan Allah